kulanti wacan wanaagsan daawadayaal lahaantiinba meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan kusoo dhawaada mar labaad iyo muuqaal cusub haddii aad nagu cusubtay fadlan nagu sabiro taaba calaamada subscribe-ka gambalaalkana furo video kasta aan soo gelino noo like ree haddaba daawadayaal barnaamijkan caawina wada waxaa ku saabsan yahay fanaanada caanka ee Farx Hargeysa oo xabsiga loo taxaabay isla habeenka caawa haddaba fanaanada caanka ee Farx Hargeysa oo la isweydiinayo sababta loo xidhay ama se xadhigeeda waxa kalifay haddaba daawadayaal xog arrintaasi ku saabsan annaga ayaa idin soo ogaanay xogta lagu xidhay amaba xadhiga waxa ka dambeeyay ayaan idin sheegi doonaa daawadayaal xadhiga waxa ka dambeeyay fanaanada caanka ee Hodan Cabdiraxmaan ayaa xadhiga fanaanada ka dambeysay taasi oo ay dhawaan isku laayeen hoyga xidigaha geeska ee ku yaala magaalada Hargeysa mar ay ku sugnaayeen labada fanaan kaasi oo dagaal dhex maray labada fanaan kadib fanaanada caanka ee Farx Hargeysa oo qabtay tababar dhanka ciidanka asluubta taasi oo beerka ka raadsaday ama beerka laad ka jartay fanaanada caanka ee Hodan Cabdiraxmaan halkaasi oo fanaanada caanka ee Hodan Cabdiraxmaan uur 3 bilood oo ka soo daatay ama bas uu ka khasaaray daawadayaal haddaba muuqaalkan wixii ku soo kordha halkan ayaan ku soo socodsiin doonaa idinkana waxaan si sharaf leh ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan channelka gambalaalkana aad furataan video kasta aan soo gelino noo like gareysaan muuqaalku waxaad la socodsiinayaan Maxamed Shaawiya tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh.